بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waa idin salaamo walaalahayga qaaliga meel kasta adduunida dacaladeeda ka joogtiin. waa walaashay Shukri Maxamed Cali Shukri Masalla idin leh ku soo dhawaada channelkeena Shukri Masalla oo idin kugu tala gasho mar walba wax wanaagsan insha Allah taala. maalmaha waa iska yara xanuunsanaa shalay daraadkii ka horeysay waxba soo ma gelinin raali ahaada. maalintan keega sameeyay kadib waa iska xanuunsaday shaqo xataa ma aadin ma fahanteen. waxaa idin leeyahay soo dhawaada meesha waxaan ku haysanaa basal maxaa sameyn rabnaa chicken yar ka soo tuureynaa. chicken kaas yarka inna ba caadi ma ahan aan ku dhahay. waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan meel walba adduunida dacaladeeda ka joogtaan. hadda waxaan ku soo darayaa basasha sida u jeedaan bas gaduud ya wili waa u celinaha ku dhahay hadduu adigu ku dhibaayo iska yareey ya waa u naqaha ku dhawa u naqa okay. basbaaska iyo basasha meesha noogu shiilmayso sida u jeedaan. waxaan ku soo darayaa wax yar oo spices kan aan hadda ku darsanayo. wax walba waa u isticmaali kartaa markii aan sameynayna videogi ka horeeyay ayaad ka daawanaysaa insha Allah taala. marka aad ugu carfaya wax yar aan ka isticmaalaya wax walba ma diidayaan ku dhahay spices kan shukul kulliya la dhahaa ya. marka insha Allah waxa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan gurigaaga ku sameysanaysaa ya. waa isku darsanaysaa sida aan iskugu dardaray iskugu darsanaysaa. waxyara waxaan ku darayaa oo oregano ah raali ahaada qaylada raali ka noqda. waxyara waxaan ku darayaa oon badneen rosemary oo qaleel ah. waxaan ku soo darayaa 2 xabo yaanyo ah oo soo jarjaray. chickenka aan sameeyrabno waa chickenka oo steak ah insha Allah taala. bariis cad lagu cun rabaa alaabtan. bariiskan waa idin soo geliyay ya because wuu sii dheeraan lahaa videoga. waxaan istahay hadda hal marka wada dhigta macala xawaajiga macala maxal wixii oo dhan iyagana waxa laga yaabaa inay si fiican u fahmin. marka saas laba video uga dhigay haddii aad kan aragto waxa raadinayay bariiska insha Allah taala. chickenkeena sidaas uu dheereeyahay aan soo jarjaranay ma sha Allah. laakiin waxaan sugeynaa inuu yaanyadan aan noo guurto insha Allah. yaanyada anaga danka ma lihin inay jajabto laakiin waxaan rabnaa inay bislaato oo kaliya ama ha jajabto ama ha taagnaato. inaada aan ma jajabinayo anyway inay taagnaato waa la rabaabo ma fahanteen. marka insha Allah laakiin waxaan rabnaa inay bisashaa oo kaliya. okay waa daboolaya marka insha Allah roogayaan huurinaya ila socdo. dabkan waa ii gaabsan yahay. waa ku soo laabtay waa u jeedin saas u huuraysa u dhigaysa. horan waa idin kugu sheegay inaan jajabiyo mar rabo danka malihi inaan jajabiyo iyo inay soo taagan tahay iyo inay jajabsan tahay waxba danka malihi. laakiin waxaan rabaa kaliya inay bisashahay iyada iska dhamaanayso. wixii soo harane no problem. waxaan ku soo daray carrot sida u jeedaan. marka hadda waxaan ku darayaa waa chickenkii oo steak waa soo dhaqay macnaha markaa jarjaray laakiin wuxuu u jarjaran yahay sidaan dheer u jeedaan ma gaagaabno. marka chickenkaasaan ku shiilaa. chickenka markaasaan ugu soo daro marka dabka u dheereena ma fahanteen. dabkan dheereena okay. dabka markaa dheereeyo waan ku gadgadinaa insha Allah. saas ugu gadgadinaya. xandiidaya biyo badan inuu iga dhalo ma fahanteen. marka saas darteed waay waxaan ugu dheereenahay dabka mana daboolayo ma fahanteen insha Allah. koosada si daboosho biyo kale ka sii dhalaya. marka sida idin sheeganayay inay taagan tahay inay jajabsan tahay ani waxba dana kamalihi dana geer leen ka rabaa ma fahanteen insha Allah. marka sidaas inoogu bislaanaysa. marka wax kaleeto oo ku soo daray waxa ka jira carfis yar oo u diyaariyay kabsar caleen iyo toon oo isku tumay. markaasa iyadana markaasa ku gadgadinaysa sidii ay dhaxda uga gasho insha Allah. marka biyo badan ma dhali karto dabka dheereysan ma fahanteen. marka insha Allah waxa sameeynayna
saasay noogu karkaraysaa mooya qaata kabsar caleen iyo toona isku soo tumay waana karsaa waa dhaariyey wixii dhan waan ka soo saaray sida u jeedaan maasha Allah waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen jikinkan marka bariisyada cadcad oo kale aad samaysanayso waxyaabaha simbalka oo kaleeto markii marti ku timaado kaleeto oo jikada gashid aad ku mashquulsantaa maxaa ka soo tuurtaa camal ma aragta aad soo tuuraysaa sidaas uu noogu bislaana insha Allah dabkan waa u dheereeyay waa u jeedin wax yar suugeena okay waa kaasa sidaas uu noogu qaleesmay aan u shiilnay saas uu diyaar ku yahay marka u jeedin wili waxaan rabaa inuu sii qalalo oo saliidda dhan ay ka baxdo sidaan jikinka kor uga qaato insha Allah marka wixii lagu dari lahaayna waan ku soo darayaa oo soo dhameystirayaa waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan jikinkeeni saasuu dhanagiisa tastigiisa suugadiisa wixiisa dhan ku qabaa yaayadane dhanaga ee sameynaysa ma qiyaasi kartid waa kaasaa kadibna iyadaaba iska dhamaatayba ma fahanteen marka insha Allah dabka waxa ugu dheereynay inuu sidaas u qalalo waa fahanteen oo maleena insha Allah taala waxa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan haddii aad ka hesheen like si subscribe ka ha ka baqaylin share garay walaalaha kale uga faa'iideey waxa idin leeyahay soo dhawaado meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan waa walaashii Shukri Maxamed Cali Shukri Masalla oo mar walba rabtiin idin kaga faa'iideyso waa suugo baasta ku cun bariis korka ka saaro waxaana ku cun waxa waaye dhacaan yar u yeelan kartaa xataa kuma qasbanid inaad dhacaanka iska dhameyso laakiin markii aniga bariisaan rabnaa inaan ku cunno mana rabo inuu qoyaan badan yeesho xarba dhanaankiisa wixiisii oo dhan inuu asaga sidaas maxaa la dhahaa uu dhaxdo uga galo okay waa u jeedin sidaas u shiileena jikinka marka kuma soo darin maraq digaag cusbo bisaan u isticmaalay saasina ila socotaana rabaa insha Allah okay marka waa idin sheegay cusbo yaraan ku soo daray maraq digaag jikinka kuma darin cusbariiskii aan maxaan ku daray maraq digaag iyo cusbo marka insha Allah waxa aad sameynayso inaad ku xisaabtantaa la rabaa sida u jeedin diyaar waay hadda jikinkeena waan ka gurayaa waxaan ku soo daray ugu dambeeyay waa kabsar caleen aan soo jarjaray marka insha Allah waxa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan haddii aad ka hesho waxaad samaynaysaa la garay share garay asxaabtaada kale la wadaag uga faa'iideeyay marka anaga waxaan sameynaynaa waa ka guranaynaa saliidaasna meesha uga tagaynaa insha Allah waa u jeedina oo maleena marka saliidaas meesha uga tagi doona insha Allah laakiin wili waxaan rabaa inaan sii xoogaa qalajiyo sida saliidda dhan ee uga harto ka xoogaa yar si labeesa dabkana uu dheereysan yahay wili maanan gaabinin ma fahanteen qoos hadii aan gaabin lahaa iyo ma qalali lahayn saanne iskuma dhaxgeli lahayn insha Allah marka u jeedina oo maleynaya meel banaana wax ku karinaya iftiinka zaa'idka raali ka noqda barxadda banaanka wax ku karinaya ya daashka ma aragteen daashka la iga dheh aan wax ku karinaa marka asxaabtayda raali ahaada iftiinka zaa'id inuu dareemaya marka saas saliidda kaligeed ida u hareysabo waa fahanteen oo maleena marka anu waxaan rabaa in hadhow jikinka meel intii isugu geeyo saliidda birta uga tago marka saliidda aniga danka malihi waa idin sheegay waxaan rabaa kaliya jikinkaas inaan ku shiilo oo ka saarto waa isku fahanaa oo maleena oo ka saar adiga ha ku mashquulin saliideeda haddii adiga ku dhibeyso iska yareey ani waa ogahay dad Soomaalidiina meel ni laga fakanayo male waxda idin sheegay xataa ima fahmeysaan aniga saliidda danka malihi laakiin waxaan rabaa inaan jikinka ku shiilo ma fahanteen su'aashu waxaan ogay oo beerka aan soo gelinayo hadda ka hor insha Allah saliidda ku shiilay qaada shabaqan ku qaaday marka warkiisa batay waxa idin leeyahay mashquulka la iska dhaafo ada daarto ku yareyso daarto ku badso ani xura ahay daarba ku badsana daarban waa ku yareysana laakiin sidaan ku sheegay aniga saliidda danka malihi waxaan rabaa inaan dhow meeshaas uga tago ma fahan saliidda waxaan rabaa inaan meeshaas uga tago hadda ay fahmeysaan waa insha Allah hadda ay fahantaan waa khayr oo nabad ka faa'iideysi wacan insha Allah taala marka saas arba inaan u sii qalajiyo hadda waa u jeedin sidaas diyaar u tahay aniga waan ka guranaa saliidina meeshaas uga tagay waa fahanteen oo maleynaya haali ahaada qeylada kundiya joogo
اوكي waa u jeedin hadda dabku waa ka damiyay waa kaasa saliidina meeshaas ay joogtaa aniga waxdan inaan ka lahayn waa idin sheegay waa kaasa chickenkii iyo wixii aan karsaday meeshaas ay joogan saasa u kala reebay marka maskaxdaada inaa la kaashataa la rabaa waxaan rabaa inaa qaybtaas hadda dhinacaas jirto aan ka soo guro kana aan meeshiisa uga tago insha Allah taala sidaas ila socdo أنا وكاسا برتو أنك قرتي سليد نواتاسا ماشا سأوتغي دادك مشغول كبدن لها عادي سكديغا أوكي وكاسا جيكين كياني سيدا سوكو صوبحي أو جيدان ما شاء الله قروح البدن له waxaa idin kugu talagashay shukri maxamed cali shukri masalo idin leh ka faa'iideysi wacan hadii aad ka hesheen la gareey shir gareey asxaabtiina kala la wadaaga soo dhawaada meel walba adduunida dacaladeeda ka joogtiin bismillaahir rahmaanir rahiim وكاسا فايديس وعان waxaa idin leeyahay soo dhawaada meel walba adduunida dacaladeeda ka joogtiin waxaa idin kugu talagashay shukri maxamed cali shukri masalo idin leh ilaahay ha idin xafido waxaa idin kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta iftiin karaale ka noqdo waxba ka qaldan